Informationen zum Einbürgerungstest. Macluumaadka ku saabsan Imtixaanka jinsiyadda. Mit dem Einbürgerungstest werden in einem Einbürgerungsverfahren die erforderlichen Kenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung und der Lebensverhältnisse in Deutschland nachgewiesen. Imtixaanka jinsiyadda ayaa muujinaya aqoonta lagama maarmaanka sharciga iyo nidaamka bulshada iyo xaaladaha nololeed Jarmalka nidaamka jinsiyadda. Das Bundesverwaltungsamt prüft Ihren Antrag und entscheidet, sofern alle sonstigen Voraussetzungen vorliegen, ob Sie einen Einbürgerungstest ablegen müssen. Xafiiska Federaalka maamulka ayaa baari doona codsigaaga haddii dhammaan shuruudaha kale la buuxiyo, iyaga go'aamin doona haddii aad u baahan tahay inaad qaadato imtixaanka jinsiyadda. Ist ein Einbürgerungstest erforderlich, werden wir Sie dafür beim zuständigen Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF, anmelden. Ihre deutsche Auslandsvertretung informiert Sie später über alle Modalitäten und den Zeitpunkt, wann Sie den Test vor Ort bei der zuständigen Auslandsvertretung ablegen können. Haddii loo baahdo tijaabada jinsiyadda, waxaa laga diiwaangelin doonaa xafiiska federaalka socdaalka iyo qaxootiga ka mas-uulka ah, BAMF. Howlgalka Jarmalka dibadda ayaa hadhow kuu sheegi doona dhammaan hababka iyo wakhtiga aad ku qaadan karto imtixaanka goobta howlgalka mas-uulka dibadda. Die Zusammenstellung und Auswertung Ihres Tests liegt allein in der Zuständigkeit des BAMF. Das Ergebnis Ihres Tests wird später direkt dem Bundesverwaltungsamt übersandt. Danach werden wir abschließend über Ihren Antrag entscheiden. Die Teilnahmebescheinigung mit der von Ihnen erreichten Punktzahl erhalten Sie in der Regel zusammen mit der Einbürgerungsurkunde. Ururinta qiimaynta imtixaankaaga waa mas'uuliyadda keliya BAMF. Natiijada imtixaankaaga ayaa hadhow si toos ah loogu diri doonaa xafiiska federaalka maamulka. Kadib waxaa la samayn doonaa go'aan kama dambays ah codsigaaga. Sida caadiga waxaad heli doontaa shahaadada ka qaybgalka oo ay la socoto tirada dhibcaha aad heshay oo ay weheliso shahaadada jinsiyadda. Sollten Sie bereits einen Einbürgerungstest oder Integrationstest abgelegt haben, legen Sie bitte eine Kopie der Teilnahmebestätigung Ihrem Einbürgerungsantrag bei Antragstellung bei. Ein erneuter Test ist dann regelmäßig nicht notwendig. Haddii aad hore u qaadatay imtixaanka jinsiyadda ama imtixaan la qabsiga, fadlan ku soo lifaaq nuqulka xaqiijinta ka qaybgalka codsigaaga jinsiyadda marka aad buuxinayso codsigaaga. Baaritaan cusub markaa looma baahna. Ausnahmen. Kinder unter 16 Jahren müssen keinen Einbürgerungstest ablegen. Der Test entfällt auch, wenn sie die Anforderungen wegen Krankheit, Behinderung oder altersbedingt nicht erfüllen können. Marka laga reebo carruurta ka yar 16 sano maaha inay qaataan imtixaanka jinsiyadda. Baaritaanka sidoo kale waxa aan ku jirin shuruudaha dadka wax ka sida yihiin ama dadka waaweyn da'da. Die erforderlichen Kenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung und der Lebensverhältnisse in Deutschland kann auch anderweitig nachgewiesen, zum Beispiel durch einen deutschen Schulabschluss oder den erfolgreichen Abschluss eines Studiums an einer deutschen Hochschule in den Bereichen Rechts-, Gesellschafts-, Sozialwissenschaften, Politik- oder Verwaltungswissenschaften. Aqoonta loo baahan yahay nidaamka sharciga iyo bulshada iyo xaaladaha nololeed Jarmalka ayaa sidoo kale lagu xaqiijin karaa siyaabo kale, tusaale ahaan iyada oo loo marayo shahaadada dugsiga sare Jarmalka ama si guul leh u dhammaystirka koorsada waxbarasho jaamacadda Jarmalka dhinacyada sharciga bulshada, cilmiga bulshada, cilmiga siyaasadda ama maamulka. Weiterführende Informationen zum Einbürgerungstest. Der Einbürgerungstest besteht aus 33 Fragen. Bei jeder Frage müssen Sie aus 4 möglichen Antworten die richtige auswählen. Sind mindestens 17 Fragen richtig beantwortet, haben Sie den Test bestanden. Auf die Auswahl der Fragen hat das Bundesverwaltungsamt keinen Einfluss. Das BAMF hat weitere Informationen zum Einbürgerungstest auf seiner Internetseite zur Verfügung gestellt. Direktlink. Macluumaadka ku saabsan imtixaanka jinsiyadda. Imtixaanka jinsiyadda wuxuu ka kooban yahay 30 su'aalood. Su'aal kasta waa inaad jawaabta saxda ka doorataa 4 jawaabood oo suurtagal ah. Haddii ugu yaraan 17 su'aalood si sax ah looga jawaabo, waad ka gudubtay imtixaankii. Xafiiska federaalka maamulka wax saamayn ah kuma laha xulashada su'aalaha.
BAMF waxay ku bixisay macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan tijaabada jinsiyadda shabakadeeda booqo oo tijaabi waakase. Dort können Sie auch einen Probedurchlauf des Einbürgerungstests machen und den Gesamtkatalog der möglichen Fragen einsehen. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, am Online-Testcenter des BAMF probeweise einen Mustertestbogen ausfüllen. Nachdem Sie alle Fragen beantwortet haben, wird Ihnen angezeigt, welche Fragen richtig beantwortet wurden. Die richtigen Lösungen stehen anschließend mit kurzen Hintergrundinformationen zur Ansicht bereit. Der Online-Test des BAMF ist kostenlos. Halka waxaa oo aad ku qaadan kartaa imtixaan tijaabo ah oo ku saabsan imtixaanka jinsiyadda oo aad ka eegi karto dhammaan liiska su'aalaha suurtogalka ah. Waxaa kale oo aad haysataa ikhtiyaarka ah in aad ku buuxiso foom tijaabo ah oo ku yaala xarunta imtixaanka online-ka ee BAMF. Kadib markaad ka jawaabto dhammaan su'aalaha waxaa lagu tusi doonaa su'aalaha sida saxda ah looga jawaabay. Halka saxda ah ayaa markaa diyaar u ah in ay ku muuqato macluumaadka asalka oo kooban. Imtixaanka fadka tooska ah ee BAMF waa bilaash,